بسم الله الرحمن الرحيم مرتيات كوبان أيان هل كان كسو جدبينيا أنا جوا جامع دبراني أفيانك مدحتوية الدولة بونتلان ورمرتيات كنا صدق وايد شركة إسكاشية الدولة حبناها كه الدولة فدرال كبونتلان هيرشابيل يكونفور قلبيد شيرا يسوي معدين مدحوينها سعيد عبد الله الدني يا مدحوينها كحجين كبونتلان أحمد علمي عثمان كراش مدحوينها هيرشابيل محمد عبد واري يا مدحوينها كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفتا جرين أو أين كقيب قالين وزير كتير سنة صدح معمول أيها كدعي مقالة الجروي اللبية طبعا كبيش ماي لبدا كون يسقاري طبعا شركة oo ay martigelisay Puntland waxa uu qayb ka yahay xoojinta iskaashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah sida uu qabo qodobka 52 ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya shirkan oo looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada federaaleynta dalka amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga tayeynta hay'adaha dawladda iyo isweydaarsiga xogaha iyo khibradaha waxa ka soo baxay qodobada soo socda dawladaha Puntland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka go'an xoojinta midnimada Soomaaliya iyo taabagelinta dawlad federaal ah oo ku dhisan dastuur cadaalad iyo sareynta sharciga labo saddexda maamul waxay ka wada shaqeyn doonaan dhameystirka iyo hirgelinta nidaamka federaaleynta dalka iyagoo iskaashi arrimahaasi kala sameynaya maamulada kale ee dalka iyo dawladda federaalka saddex waxay yeelanayaan saddexdan dawladood iskaashi ballaaran iyadoo la sameynayo guddiyo farsamo oo ka shaqeynaya hirgelinta heshiisyada iskaashi ee dhinacyada federaaleynta amniga ganacsiga horumarinta hay'adaha dawliga ah iskaashiga arrimaha bini'aadantinimada iyo xalka waara ee barakacayaasha afar waxa la isla gartay in la iska kaashado guud ahaan amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo isweydaarsiga xogta iyo dambiilayaasha shan Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato khibrad iyo dhaqaaleba dhameystirka iyo tayeynta hay'adaha dawladeed ee maamulada lix wuxuu shirku taageerayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorsheynta dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah kaasi oo ku soo idlaaday 7 May 2019 magaalada Garowe ugu dambeyn qodobka 7 shirku wuxuu taageeray warmurtiyeedkii iskaashiga wasaaradaha maaliyadaha ee xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee soo baxay 12 May 2019 kaasi oo ay si cad uga hor yimaadeen xeerka cashuuraha dalka ee wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya uu horgeeyay wada tashi la'aan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya 7 qodob ayuu warmurtiyeedku